dabkani ayaa ka kacay kaalin shidaal oo ku taala bartamaha magaalada Dhuusamareeb waxaana u soo gurmaday dadweynaha magaalada iyagoona isku dayayay in ay damiyaan isla markaana ka badbaadiyaan hantida taala halkaasi iyadoona dabku uu ku fiday goobo ganacsi oo ka dhawaa goobta markii hore uu dabku ka kacay kaas oo muddo saacadaha soconayay dadkuna ay la tacaalayeen iyagoona ku guuleystay in dabkaasi ay damiyaan qaar ka mid ah dadkii u soo gurmaday goobtan shidaal oo dabka uu qabsaday ayaa waxa ay ka waramayaan sida ay ugu guuleysteen in dabka ay damiyaan waxa ayna codsadeen in laga hirgeliyo magaalada Dhuusamareeb dabademis looga hortago masuubiyoonka noocan oo kala ah waxay u tahay maalin madow ay u tahay waxaana way dhacaan waxa waaye waxaana keenayo shidaaladan meel walba laga furaayo insha Allah Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa waxaan in loo yeelo in xukuumad loo yeelo oo shidaaladan iyo hantida la kala fogeeyo aan Ilaahay ka rajaynaynaa intii hantida ka burburtana waxaan leenahay Ilaahay hantidooda hanti qeyr qabta Allah ka dhigo Ilaahayna ha u sahlo wixii maanta hantidaas ka burburto maalkaas oo ka burburay waa wax magaalada runtii ku keenay damage weyn ku keenay waaye Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in Ilaahay nagu soo celin oo Ilaahay ka baryaynaa musiibada maanta dhacdo kale in Ilaahay mar kale nagu soo celin maanta lama kala harin runtii nafa noo badbaaday oo nafa naga gubanin oo naga dhimanin laakiin hanti way baaba'day runtii dadkuna waxay mareen dib badan iyo juhdi badan ma awoodaan inay baabiyaan waxayna rabi lahaayeen inay waxaan ay damiyaan waxaan codsanaynaa anigoo gudoomiyaha ururka haweenka caasimadda ah waxaan codsanayaa oo cod dheer iyo cod gaabanba ka codsanaya magaaladan dadka u dhashay oo magaaladan u dhashay inay sameeyaan hanti aruurin si loo sameeyo in la sameeyo ii sheeg maxaan ku yiraahdaa dabdamisyo la sameeyo dabkaas dad badan ku baabeen hantoodii waa ku waayeen dukaamada maanta gubta waxa yaala 300 oo dukaankiiba dabdamiskana wuxuu joogaa $7,000 haddaan bulshada danyarta ee deegaanka ku nool dabka waa meeshii saddexaad oo gubata waxa gubata saddex ajibay maray ajibtii waxa taa lacag 300 kuna waxaan leeyahay maamulka caasimadda ee ugu horeeyay gudoomiyaheeda qorow haddii aan dabdamis la helin waxaan shacabka haddaan aan codsanaynaa inaan hal meherado kamid ah aan la furin magaalada dukaanka ugu yar ee qudaarta lagu gado haddaan afar bari dabdamis lagu keen in midka qudaarta lagu gado aan la furin waxaan bulshada leeyahay sida aad saaka u shaqeeyay inay maxay tahay dabdamis gadaan haddana maxay ahayd ma sameynayaan aad iyo aad ugu xumaa inay hantida meeshan ku baabaado maanta waxaan kamid ahay dhalinyarada galmudug ee haddana u soo gurmatay inay maxay tahay hantida dadku wax ka badbaadiyaan maxay tahay maamulka galmudugna waxaan ka codsanaynaa inay dabdamis noo keenaan magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka galmudug ayaan lahayn wax dabdamis ah waxayna dhowr mar oo hore ay isku dayeen ganacsatadu in loo helo magaalada Dhuusamareeb dabdamis balse ma aysan suuroobin